wacan wanaagsan daawadayaasheena Mudug Show. Muuqaalkan waxaan doonaynaa inaynu kaga hadalno gaashaanbuurta cusub ee military oo laga dhex sameynayo bariga dhexe. Haddaba intaynan guda gelin muuqaalka, subscribe saar channelkeena Mudug Show oo nagu soo biir wixii comment aan hoos inoogu reeb mahadsanid. Haddaba aynu guda galno muuqaalkeena. xilli uu soo dhow yahay kulanka bariga dhexe oo bartamaha bishan lagu wado inuu ka qabsamo magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga oo ka soo qayb galayo madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si weyn loo hadalhayaa suuragalnimada in bariga dhexe ay ka aasaasanto gaashaanbuurta urur military oo la mid ah ururka NATO. gaashaanbuurtaasi oo loo aasaasayo xasiloonida gobolka iyo inay si wadajir ah uga hortagaan dalka Iiraan. kulankaas ayaa waxaa ka qayb galaya wadamada Khaliijka sida Masar, Urdun iyo Ciraaq. inkastoo aan si rasmi ah loo shaacinin ajendaha shirka, haddana waxyaabihii toddobaadyadii u dambeeyey dhacayay ayaa keenaya in gunaanad noocaasi ah la gaaro. wargeyska afka dheer ee Wall Street Journalist wuxuu toddobaadkan qoray in heshiisyo qarsoodi ah ay dhex mareen wakiilo ka socday wadamada Khaliijka iyo dalka Mareykanka. ilaa xogogaalna waxa ay sheegeen in dalalkaasi ay isku afgarteen inay iska kaashadaan qatar kasta oo soo wajihi karta ayna midoobaan. toddobaadkii horena wasiirka difaaca dalka Israel Benny Gantz waxa uu sheegay in dalkiisu uu ka qayb galayo waxa uu ugu yeeray xulufada ciidamada cirka oo ay yeelanayaan wadamada bariga dhexe oo ay horkacayso dowladda Mareykanku. haddaba dhaqdhaqaaqan muxuu ka dhigan yahay? doorkaas Israa'iil ay ku yeelan karto muxuu yahay? arrinta xusidda mudan ee xulufada cusub ayaa waxa ay tahay in Israa'iil ay hub casri ah haysato, gaar ahaan nidaamka difaaca hawada, kaasi oo u horseedaya in xulufada ay shuruud la'aan uga mid noqoto si xulufadu ay awooddooda ciidan u noqoto mid muuqata. waddamada ku yaalla bariga dhexe ayaa aad uga baqaya suuragalnimada weerarada cirka oo ay Iiraan waddamadaasi ku soo qaado si weeraradaasi isaga difaacaanna aysan ka maarmayn nidaamka difaaca hawada ee Israa'iil. qubarro u dhuundaloola arrimahaasi ayaa waxa ay sheegeen in Israa'iil ay tahay quwadda military ugu weyn bariga dhexe, waddamada gobolkana ay ku qasban yihiin in xulufada ay ku soo daraan. xulufadaasina waxa ay ka koobnaan doonaan waddamada xiriirka tooska ah la leh Israa'iil sida Masar, Urdun, Imaaraadka Carabta, Bahrayn iyo Morocco, iyo sidoo kale waddamada aan xiriirka tooska ah la lahayn Israa'iil ee uu Mareykanku hogaamiyo sida Sacuudi Carabiya, Cumaan, Qatar iyo Kuwait. dowladaha Khaliijka waxay horay u lahaayeen isbahaysi ciidan oo midaysan, waxaana lagu magacaabaa gaashaanka Khaliijka. isbahaysigaasi oo ka kooban 40,000 oo askari.